لسانك حصانك إن صنته صانك، لسانك حصانك إن صنته صانك. هذا اللسان هو السبب إن صرت في نار اللهب. هذا اللسان هو السبب إن صرت في نار اللهب. هذا اللسان وحقه حبس يطول بلا سبب. أمسك عليك هذا يا أخيا، أمسك عليك هذا كي ننجو سويا. أمسك عليك هذا يا أخيا، أمسك عليك هذا كي ننجو سويا. لسانك حصانك إن صنته صانك، لسانك حصانك إن صنته صانك. هو لا يمل من العمل، لا يشتكي يوما تعب. هو لا يمل من العمل، لا يشتكي يوما تعب. للمؤمنين إن اتقوا حقا رسول ما كذب. qaarkood ayaanu yeedhanaynaa dadka wax garanaya deetana muxaadaro ayaynu bil kastaba jumcaha u dambeeya aan qaadan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. muxaadaradaas oo dumarkuna horey u qaadan jireen aan jecel lahayna inuu ragguna iyaguna ay kasoo qayb galaan oon hal mawduuc oo muhim ah mar kastaba aan ku qaadaa dhigi doono. muxaadaradeenna maanta waxa ay noqon doontaa dhibaatooyinka uu leeyahay carabku, waxyaalaha bini aadamka carabku u geysto ee dhib ah, aafaadka iyo cudurada qalbiga ku dhaca ee carabka ka yimaada, iyo dhibka uu carabku u geysan karayo ruuxa mustaqbalkiisa dambe inuu xataa ku aakhira seego carabkii iyo wixii uu ka yidhi. waxaan marka muxaadaradeennan maanta ku qaadan doonaa xanta oo qiibada loo yaqaano iyo namiimada oo ah isku dirdirka, iyo badaa'atu lisaani carab dheerida uu ruuxu carabkiisa faraha uu ka qaado siduu doono ha u hadle, iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin iyo farqiga u kala dhexeeya, iyo ruuxa muslimkii hadduu wax qoonsado ama uu arko waddada saxdaa uu mari lahaa. namiimada waxaa la yidhaahdo iyo qiibadu iyo xantu way yaro kala duwan yihiin tacriif ahaan. namiimada ama qataadka ruuxa la yidhaahdo waa ruuxu inuu ruux kale wax uga sheego liwajhi lifsaadi, inuu labadaa ruux kala fogeeyo. qiibaduna waa dikruka akhaaka bimaa yakrah ow dikruka ukhtuka bimaa takrah, waxa uu walaalkaa ama walaashaa ay necab tahay ood ka sheegto. marka waxay ku kala duwan yihiin labadoodu. namiimadu way kasii xeel dheer tahayoo markaad labada ruux u kala sheegaysa waxaad rabtaa inay kala fogaadaan. qiibadaynu marka wax ka qaadanaynaa waxaan sheegaynaa oo kale sida looga badbaadi karayo oo ruuxa muslimku isaga ilaalin karayo dhibkeeda markaan ogaano. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min adan ina bacda adanni ithm walaa tajasasuu walaa yagtab bacdukum bacdaa ayuxibu axadukum an yaأkula laxma akhiihi maytan fakarihitumuuh waاtaquu llaha ina allaha tawaabu raxiim. aayaddan suurat lxujuraat bay ku jirta, aayad jaamica ah weeyaan. ruuxa muslimka ana arrimahan oo kale markuu rabo inuu ka fogaado laba suuradoodba waa inuu si fiican u darsaa, suurat lxujuraat iyo suurat nuur. cudurada bulshada ku dhaca oo qiibada iyo namiimadu ay ka mid tahay bay si toosa u abbaarayaan, dadkan uga digayaan, ayna ku tilmaamayaan dadka sameeya ficilooyinka noocaas oo kale ah in ay dad aada u liitan yihiin. ilaahay aayadda wuxuu ku yidhi dadka mu'miniinta ah tilmaanta ay leeyihiin buu kula hadlayo, mu'miniine yaa ayuha aladiina aamanuu waxaad ka fogaataan wax badan oo mala ah
waxaan u malaynayaa waa hadal aadan hubin ina bacda danni ismun baa la yidhi subxaana wa tacaala malaha qaarkii waa dembi deetana allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tajasasuu waxba ha baadhbaadhin oo ruuxa ha jaajuusin ruuxan muslimka ah ceebihiisa inaad raadiso adiga laguguma talagelin waxaa jira laba malag oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u talagalay inay wax ka ogaadaan laakiin adiga walaa tajasas bal walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacda qaarkiina qaarka kale yuusan xaman si xantii looga fogeeyo ruuxa waxaa la yidhi miyad ayuxibu axadukum mid idinkaini kamidii ma jecel yahay an yakula laxma akhiihi mayta walaalkii oo mayda inuu hilibkiisa cuno walaalkii oo mayda inuu hilibkiisa cuno miyuu jecel yahay axaadiista ku iman doonta sida hilibka loo cunayo baa inoo cadayn doonta insha allahu tacaala in ruuxa muslimka ah eed xamanayso ay tahay asaga oo dhintay oo meyd ah inaad hilibkiisii googoosanayso ood weliba cunayso waana istiqdaar waa ruuxu bini aadamkii wuxuu ka cararo wey waxaa alla yidhi subxaana wa tacaala waylun likulli humazatin lumaza halaag iyo cadaab wuxuu u sugnaaday mid kaste oo ceebayn badan humaska iyo lumasku waxay ku kala duwan yihiin midna waa inaad carabkii ruuxii ka ceebayso midna waa inaad ishaarto oo aad ama iljabin ama maaragtay tilmaan ahaan aada ku ishaarto ruuxii wuxuu uusan raalli ka ahayn allana wuxuu leeyahay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid wax allaala waxaad ku hadasho waxaa jira ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igu soo dirtay oo aan marraba meel la aadaynin oo wax kasta kaa qoriya walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun waxaada waxba waru haynin hadhexge sababtoo ah ina samca walbasara walfuaada kullu ulaaika kaana canhu mas-uul aragga waa la isweydiinaya samca maqalka waa la isweydiin oo aragga waa la isweydiin oo qalbiga waa la isweydiin intaaba waa la isweydiinayaaba alla yihi subxaana wa tacaala idan nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga ayaa tacriifiyey wuxuu yidhi atadruuna ma alghiiba kiibada ma taqaana waxay tahay kolkaasay saxaabadu waxay yidhaahdeen allah warasuuluhu aclam allah og subxaana wa tacaala kiiba waxay tahay deetana nabig wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dikruka akhaaka bimaa yakrahu waa walaalkaa wuxuu necab yahay od ka sheegto hadduu maalan dhinac xiiran yahay hadduu lug jaban yahay hadduu gacan laayahay haddii uu dheer yahay waad dheer tahay ku tiraahda lakiin uusan jeclayn hadduu gaaban yahay oo waad gaaban tahay ku tiraahda oo uusan markaas raalli ka ahayn waxa uu xataa hadduu wixii shaygii yahay laakiin uusan jeclayn ood ku sheegto waxa weeyaan waad xamatay soomaalidu waxay yidhaahdaan ma xamanaye hortiisaan ka sheegay hortiisa ayaan ka sheegay marka ama hortiisa ka sheeg ama asagoo kaa maqa sheega xan wey mar hadduusan raalli ka ahayn ma xamanaya waan ku xariirahaya yani waan ku caddaynayaa hortiisaan ka odhanayaa wey saas intuba xan wey haddii uusan ruuxu marka shayga uusan kuba sifaysnayn aada ku sheegtana waa buhutaan wey waa hafarya iyo been abuurasho aada ruuxa ku been abuuratay cudurkan xanta la yidhaahdaye wuu faafay haddana wuxuu ka sii baxay farihii wuxuu soo galay meelaha cibaadaadka lagu sameeyo meelaha diinta iyo masaajidada iyo khayrkii buu soo dhexgalay dadkuna way dhayilsadeen oo way iska yaraysteen arrintuna arrin khatara wey kelimad yar oo waxaa laga yaabaa aada ruux ka sheegtay ama walaalka ka sheegtay in ay halaagaaga ruuxaas u tahay ruux kastaba ha ahaado ilaahumaad gabadha u xijaab weyn ahaatid ilaahumaad wadaadka u cumaamad weyn aad ahaatid haddii wuxuuba uu xan yahay oo aada og tahay ruuxa kalena muslim inuu yahay ood sidaa u xamanayso waxaad ku jirtaa shay aada iyo aada khatar u nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii xudayfa caaisha ayaa waxay tidhi rasuulka ayaa waxaan ku idhi bay tidhi xasbuka min safiya kada wa kada gabadha safiya la yidhaahdo yacni tacni qasiira waa gabadh gaaban banka sidaasaan ku idhi bay tidhi deetana nebigu wuxuu yidhi laqad qulti kalimatan low musijat bimaai lbaxri lamasajat kelimad baa tidhi haddii badda biyaheeda lagu dari lahaa way doorin lahayd
هذه كلمة سيدا أهانتها سيدا أوريس كلمة داسي سيدا أي مثلا بأحن تهي سيدا الصن تهي بدأ هذه اللي قدر لها بدو ويدور سامي الهي بدأ بيه هو ملح وسيدا يكون دور سون تامرك عاد بيوادكتها كلمة هالك كلمة أو كلية قبل أسوأ قابن تأتي هذه اللي قدر لها ويدور سامي الهي كورن وقابن تروح هذو تورافو أو روح مسلم كأما ولالك أما ولا شيء ووجه هنا يسبري كتاي ما أنت إذا حمانا يكشيجي ولقوا قرح السنة يو شيء كذا بلقوا قرح السنة النبي عليه الصلاة والسلام هذين كلا الناس يوحي مررت بقوم لهم أطفال من نحاس ضد صامري بيري عديو براها نحاس له ضد عديو براله أو نحاس oo birahaas wajigooda iyo laabtooda ayay isku jeexjeexayaan kolkaas waxaan ku iri buu yiri man haula ya jibriil baa la socday jibriil maxay ahayd dadka sidani dadkan iscadaaban ee iyagu iscadaabahaya ee cidiyaha in sidan biraha ale ee wajiga iyo laabaha iskaga jeexjeexaya maxay yihiin kolkaas jibriil wuxuu ugu yiri haula alladina yaakuluna luhum an-nas ويقعون في أعراضهم كون وحويان دتك هيلب كودا كوا عنا عرض وضنا كل عويان دتك هيلب كودا كوا عنا هيلب كلا عنا هاي دتك هيلب كودا هيل دتك لا نقشوا لكن هذا قرية فديان عنا كرتا هذا الصعود عنا كرتا دتك هيلب كيسة ومركها دتك وحكش يجيسون عرض وضنا كل عيسو أما النصر كودا وحكش يجيسو أما أخلاق وضنا وحكش يجيسو أما سيو أجين وحكش يجيسو أما وحي سمايين أدو حكا شيغيس وحيالهاس أدو دادك كل عيسو لحظوضة أيا آخرو هالكا كوغينيس روحا مثلا بمركز النبي عليه الصلاة والسلام دادك نو أركا هياي ساسيو عذابيهين أيا ولي قيامة قاد أيا قيامة قاد أيا قبر يساء عذابنا ليا النبي عليه الصلاة والسلام روحا مسلم كاو تعريفيه وإنه شيء يقول المسلم يعني إله المسلم أخو المسلم روح مسلم كي هو مسلم كوالك لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله النبي عليه الصلاة والسلام ودمه وحي الروح كستا روحك كلا مسلم ككلا وحا حرام عرض جيسا إياه مالكيسا iyo dhiigiisa inta xaraam ka yihiin nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa kale oo inoo sheegay wuxuu yiri المسلم اخو المسلم لا يظلمه روح مسلم كي وروح مسلم كا ee kala walaalki ma dhulmiyo manahoojiya la yakhdulu wala yahqiru mana haqiro معناها بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم روح شر وحابه كوغو فلان روح كلا أو مسلمة إن الحقيقة سببتها الروح مركا أو روح حقيرها يو وحكتشر السجا إسلويني السجا أياه إسلويني هاي روحا وحقيرها يلو كسر أياه يسكوها أذوقو ما أذيك أياه دجال كبدر كتشري مثل صلح الحديبية أياه كقيب قالتي مثل إلهي ما يسوع جهادي ودينت إلهي ما تسوع دفاعي قرمات قاعد يهار أروح مسلم كلا هركات كحقرته وحلا جيابا مالا إنه كاجا لي تحجيسه لكن وحلا جيابا مالا فربنا وكلا إنه كاجا في عين روح مسلم كأمرك مسلمين تو إن النبات جلان وأي كم نبات جلان محي عرب كاجا أردت أساسه ما أمس كرتا ضدك ما إسكت دين كرتا أردت هذا يرين أن أو آدم أردت ساء آدم أقادنين واحد أوجته خسارة أو إدرينا تكتبتواني أوجدونا واحد ربنا إنه أسباب كوكاني كرتا أما كاتشو تشنكريسا إناد حنت تشوتشسو بين آخرين إن هذه لا إله لكن هل حديث أو واحد ترى النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه حديث كاسي وحديث سلسلة الحديث الصحيحة كسجون
nabigu wuxuu yidhi ruuxa muslimkee nool xantiisa waaba intaa u tagtaa waxaa odhan kartaa war iga saamax laakiin hadduu dhintay way kasii xuntahay nabigu wuxuu yidhi war saaxiibkiin hadduu dhinto ruux muslim oo idin kamid a hadduu dhinto wey fadacuuhu iska daaya oo walaa taqacuu fiihi ha ku dhicina walaa taqacuu fiihi ha ku dhicina waxaa kale oo riwaayad kale ahayd ruuxa xayiga ah ayay dhibaysaa iska daaya oo maanta oo idil maalan ba ilmo abujahal oo jooga haddaad abujahal un haysato inkastuu laciin ahaa haddana kuwani waxaa laga yaabaa inay ka xumaadaan ruuxa hadduu muslimnimo aynu ku ognahay inuu ku dhintay waa inuu inaga nabadgala wuxuu doonayaa samaynayay maalinka malaa'igtii qaaday naftiisa ee nafta ka qaaday miyaad noo xaqiijin kartaa kuway ahaayeen ma malaa'ikatu raxma inay qaadeen iyo malaa'ikatul cadaab inay naftiisa qaaday haddaadan ogeyn oodan noo xaqiijin karaynin faraha ka qaad weeyaan fadacuuhu walaa taqacuu fiihi faraha ka qaada oo ha ku dhicina oo iska daaya weeyaan ninkii la odhan jiray abu bursat alaslami baa wuxuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu calayh wasalam rasuulka wuxuu yidhi buu yidhi yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu qalbahu laa taqtaabu lmuslimiin dadkan af carabka ilaahay ka rumeeyeye qalbigooda uusan iimaanku gelino muslimiinta xamanina bal xadiiskan u fiirso ruuxani laa ilaaha ila allahu carabki ka leeyahy carabkii uu laa ilaaha ila allahu ka lahaa muxamedun rasuulullah buu haddana muslimiintii ku kala jaraaxaynaya oo uu ku cunaya marka nebigu wuxuu ka cabiray ruuxani hadduuba muslimiintii iska dayn waaya xantoodii inuusan iimaan kaamila meesha u olin marka waxa uu inoo sheegaya waa unka carabka yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iimaanu qalbahu dadkan uusan iimaanku qalbiga u geline carabka uun ilaahay ka rumeeyayo laa takhtaabu lmuslimiin muslimiinta ha xamanina walaa tattabicuu cawraatihim cawraadkooda iyo muslimiinta meelahay ku liiliitaanna ha raacraacina ruuxa waxaa dhici karta inuu meel ku liito haddaad sidii daksigii meesha uu ruuxu ku liita keliya aad ku dhacdo waxaa la yidhi bini aadamka waxay qaarkood shabahaan sida xayawaanaadka oo kale xayawaanaadka waxaa jira qaar say usoo socdaan meesha macaan keliya ku dhacahaya waxaa jira sida daksiga oo kale jidhka kale ee nadiiftoodin intuu soo dhaafo meel booga markuu arko halkaas ku degaya marka waxaa lagu cabiray waxaa la yidhi war dadka muslimiinta faraha ka qaada oo cawraadkooda ha raacraacina xumaantooda dadka ha raaraadinina hebel maxaa laga soo sheegay heble maxaa laga soo sheegay ma maqasheen saasaa lagu yidhi saasuu sameeyaa baa la yidhi xagguu ku qarsadaa baa la yidhi xaggay tahay baa la yidhi waxaasoo idil adiga yaa cawraadka dadka muslimiinta raaraac ku yidhi fainahu man ittabaca cawraatihim yatabicu llahu cawratahu waman yatabicu llahu cawratahu yufadixu fii beyti nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskan oo saxiixuljaamic ku sugan lilalbani wuxuu nabigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam ruuxa dadka cawradooda raacraaca dadka meelahay ku liitaan ruuxan raadiya ilaahay baa asna cawradiisa raaraadinaya oo raacraacaya ilaahay ruuxuu cawradiisa raacraacana gurigiisa dhexdiisaaba haata ilahay wuu fadixaynaya wuu fashilaya arrintaasina ruuxa xamanaya wax bay zajri u tahay iyo inuu ka joogo arrintaas hadday muslimiintu kaa baxsan waayaan ood islaamka ilaahay ku maqan tahay muslimiinta ilaahay aada ku maqan tahay afkaaga ugu maqan tahay oo aad dhib ku hayso waxaad ogaataa inuusan ilaahay haafil ahayn waxaa laga yaabaa adoo gurigaaga jooga in lagu fadeexeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ceebeeyo quluubta muslimiintana alla isagaa oge waxaa laga yaabaa quluubtii muslimiinta inuu ilaahay wax kale ku geliyo taasina waxay keenaysaa in aad markaa khasaarto khasaare kii ugu weynaa fi dunya walaakhirati inaad ku dhacdo idan alla subxaanahu watacaala
haddii uu ruuxa la dagaalamayo oo cawradiisa uu raaraadinayo xagaad ku baxsanaysaa meel allaala meelaad ku baxsanayso ma jirto ninkii cawraadka muslimiinta ay muslimiintu ka hadhsan waayaanow waxaad ogaataa inuu alla kugu soo maqan yahay ama maanta ha ahaata ama mar dambe ha ahaatee waxaa laga yaabaa inay arrintaasi ka soo muuqato gurigaaga ama caruurtaada ama zawjkaaga ama zawjadaada ama qaraabadaada inaad ka foqmo hebel caruurtiisu waa saa xataa haddaad tidhaahda hebla saas weeyaan ninkeedu waa saas ayadu waa saas tubaa la aroosahayaa waxaa la raadinayaa tan la aroosahaya ceebteeda maxay ahayd waa qoloma sidan u ekayd taasay ahayd taasaa ka qurux badan maantooda waxaa laga yaabaa intaa lagu maqan yahay ama isagii lagu maqan yahay waxaa dhici karta inay adigana taasi kugu maqan tahay ogow ma waxaad moodeen walaalayaal inuu ilaahay subxaana wa tacaala uusan ina fiirsanaynin oo waxa dhacaya uusan waxba ka ogeyn oo ilaahay subxaana wa tacaala haddii uusan waxaanoo idin uusan waxba ka qabanaynin seebaa laynoo xisaabinaya mayaysan xisaabi jirin idan ruuxa seebuu ilaahay cawrada u raaraacaya waxa weeyaan waa ilaahay baa cawrada waa waciid bikashfi illaahi cuyuuba aladiina yatabicuuna cawraat lmuslimiin waa digniye lagaaga digayo in dadka ilaahay subxaana wa tacaala cawraadka muslimiinta raaraacay inuu ilaahay subxaana wa tacaala iyagana fashilayo oo uu saniica siday iyaguba dadka u xamanayeen lagu abaalmarinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga digayaa inaan dadka hilibkooda cunno alla siduu inooga digay dadka hilibkooda inaynu cunno hilibka la cunahayaana waxa weeyaan waa hilib walaalka ah hadda haddii laynagu yidhaahdo mid idinkaydi kamida kaana hilibkiisa cuno hal ruuxoo dhadhamiya ruux mantaga mooyeen inaguma jira haddii la yidhaahdo weliba isagoo mayda intaa u timaadaan kaalay aynu qalanne oo aynu cunne nin ku raaxaysan lahaa ma jirin laakiin waxaa laga yaabaa majlis inaad fadhido ruux walaalkaa aad lagu cunayo oo ay sidii idinkoo beriis cunahayo oo kale ay idin tahay idan nabigu wuxuu inoo sheegay ina min arba riba alistitaalatu fi cardi muslimi bigayri xaqin ribada midda ugu daran ribadu waa labo ribo waa midanaynu naqaano ee laynooga digaya xoolaha maalan maytaan ruux xoola amaahiso intii aad lacagta ku amaahaysa in ka badan inaad dhawaa ka rabta ay tahay taasi waa mid laakiin nabigu wuxuu yidhi ribo midda ugu ribaysani alistitaalatu waa inaad isku dheerariso fii cardi lmuslimi ruuxa muslimka ah cardigiisa cirdi muslimka fii cirdi lmuslim bigayri xaqin xaq la-aan aad isku dheerariso cirdi lmuslim waxaa la yidhaahdaa ruuxan sharaf buu leeyahay dignity buu leeyahay ma la rabo inaad dhaawacdo laakiin haddaa intaad soo qaado aada qolo kale uga sheekaysto ama aada qolo kale ku ceebayso ama aada asagii wax ka sheegayso waxaad sumcadiisii baad dilaysaa sumcadiisa inaad wax ka sheegto lama rabo wax asaga sumcadiisa wax u dhimahaya inaad sheegto idinla waa ka xaaraan wax kastaba ahaadee idan ruux hadduuba muslim yahay waa inuu nabadgalaa haddii kale ribo midii ugu xumayd ayaad ku jirtaa ribo midii ugu xumayd ayaad ku jirtaayo muslimiinta hilibkoodaad cunayso ayaa ribo ah muslimiintaas inay kaa baxsadaan wey waxa aada garanaysaan nabiga waqtigiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacay nin baa zinaystay nin maacis la odhan jiray maacis baa la odhan jiray nabiga ayuu u yimid kolkaasu wuxuu ku yihi rasuulka ilaahayow waan zinaystaye kaalayo xadda iga oofi deetana rasuulku wuu kasii jeedsaday wuu ka jeedsaday 4 jeer ayuu ninkii soo istaagayo rasuulka ilaah xadda iga oofi markii dambe ayuu rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam xaddii ka oofiyey waa la rajmiyey nin horay macnaha xaasu lahaa buu ahaan jiray kadibna zinadaasuu ku dhacay kadib wuu qirto isagaa iskeenay deetana xaddii baa laga oofiyey dhagax baa lagu dilay dhagax ayaa lagu dilay xaddu zina
ruuxu hadduu ku dhaco ayaa tahay in dhagax lagu dilo haddii uu markaa guursaday deetana isagoo dhagaxii lagu dilahaya ayuu nabigu wuxuu soo maray laba nin labadaa nin baa waxay lahaayeen midkood baa mid kale wuxuu ku yidhi alam tara ila aladii satara allahu calayhi falam tatcu nafsuhu xataa rujima rajma alkalb bal ninka fiiri buu yidhi intuu ilaahay asturay deetana naftiisa ay siin weyday intuu soo orday sidii aygii dhagax loogu dilo mooyeene bal ninkaa ka warrama laba nin baa isku lahayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu iska soo socday deetana wuxuu soo maray rasuulku dameer baktiyey buu soo maray bakti dameer buu soo maray kolkaasu wuxuu ku yidhi ayna fulaan wa fulaan hebel iyo hebel awe war hebel iyo hebel awaye kolkaasaa waxay dhaheen waa ka kolkaasu wuxuu yidhi inzila fakulaa min jifati hada alximaar wixii ay saarnaayeen ee gaadiidkaagu intaad ka degtaan baktigan dameerkan cuna waa arrin la yaabna kolkaase waxay ku yidhaahdeen gafara allahu laka yaa rasuul allah wahal yukalu haada rasuulka ilaahayow ma waxaanoo kalaa la cuna kolkaasuu rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam famaa niltumaa min akhiikumaa aanifan ashaddu aklan minhu wixii aada walaalkiin maanta ka cunayseen markii dhaweyta aada walaalkiin ka cunteen baa kan kasii daran wey dameer baktiyey inaad hilibkii cuntaan waxaa isnaa oo ka darnaa inaad walaalkiin hilibkiisii cunayseen waa nin intuu sinaysta la radminayo halkaa kelima ay yidhaahdeen wey innagana waad ogtihiino waxaa laga yaabaa intii ruuxa la ysku qabto in aan waxbaba laga tegin idan ayuha alikhwa haddaad maqasho marka xanta ayadoo la samaynayo maxaa kula gudboon waxaad aragtay ruux walaalkaa la xamanayo ruuxa walaalkaa la xamanayo ruuxa xamanayaa asagaa la xamanaya adigii maqlahaya ee saamica ahaa maxay tahay actionka ama ficilka ay tahay inaad qaadato imaamu nawowi ayaa wuxuu yidhi raximahu llah wuxuu yidhi iclam anahu yanbaqii liman samica giibata muslimin an yaruddaha wuxuu yidhi waxaad ogaataa ruuxa muslimka ah ninkii maqla xantiisa waa inuu celiyo oo ka radiyo uu yidhaahda ka daaya hadduu hadalka ku radin karo wuu ku radinaya hadduu gacan ku radin karo gacantaas ku joojinaya haddii uu waxba ka qaban waayo majliska qiibada lagu hayo ayuu iskaga tegaya u ka dhaqaaqaya meeshaba waynu iskaga dhaqaaqa oo iskaga carara sababtoo ah waxaa saameynaya meesha ruuxa muslimka lagu hayo balaaya ka socota marka waa inuu meesha iskaga tagaa uusan maqal weliba wuxuu yidhi waxa ay qiibadu sii darnaanaysaa buu yidhi ruuxan la xamanaya hadduu yahay min ahli alfadli wasalaax dadka wanaagsan hadduu ka mid yahay wayba kasii daran tahay idan macnaheedu waxa weeyaan ruuxa markuu qiibada ama xantan maqlo waa inuu meesha ka tagaa xadiiskana u fiirso nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa min imriin yaqdulu imra'an musliman fii mawdicin tuntahaku fiihi xurmatuhu wayuntaqasu fiihi min cirdihi ilaa khadalahu llahu fii mawdinin yuxibu fiihi nusratah wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ma jira ruux muslima oo ruux walaalkii oo muslima meel lagu hayo oo lagu xamanayo intuu yimaado aan dadkii xamanayay ka joojinin ama aan ka celinin ilaa haddii uu ruuxaasi sidaas ay ku dhacdo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala garabkiisa midi ka baxaaya maalin uu ilaahay u baahan yahay gargaarkiisa ruux muslima oo alla leeyahay subxaanahu wa tacaala baad u gargaari weyday dadkii xamanayay baad ka celin weyday maalinkaad ugu baahi badan tahay inuu ilaahay kuu gargaaro
buu ilaahay subxaanahu watacaala garabkaaga ka baxaya xadiiska intiisa kalena waa sida oppositekeeda oo wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wamaa min imri'in yansuru musliman fii mawdinin yuntaqasu fiih ma jiro ruux u gargaaraya ruux muslima meel lagu yaraysanayo ama lagu yasayo ama lagu xaqirayo oo cirdigiisa wax lagaga sheegayo oo xurmadiisa lagu xadgudbahayo hadduu u gargaaro ilaa nasarahu allahu fii mawdinin yuxibu fiihi nusratahu ilaahay baa ku gargaarahay ruux muslimaad aragtay oo meel lagu hayo wax lagaga sheegayo maxaa laga sheegaya nasabkiisa wax laga sheegaya cirdigiisa wax laga sheegaya ehelkiisa iyo dadkiisa iyo caruurtiisa iyo qaraabadiisa inta ku xidhan ba wax laga sheegaya xurmadiisa wax laga sheegaya kolkaasaad soo istaagtay oo tiri naga daayi waa ruux muslima faraha ka qaada meelo uu ku wanaagsan yahay baad meesha u sheegtay arrintiina dadka waad ka joojisay ilaahay baa kuu gargaarayaa meel aad jeceshahay inuu ilaahay kuu gargaaro maraad u baahan tahay ilaahay gargaarkiisa fii mawdinin yuxibu fiihi nusratahu meelaad isleedahay hadda yaa maanta kaa fujiya wuu ilaahay kaa fujinaya arrintaas waa in aada iyo aad loo ogaada marka dan ruuxa muslimka ayay u tahay man damba nabigu wuxuu yidhi man dabba ninkii ka difaaca can cirdi akhiihi walaalkii cirdigiisii ruuxii difaaca oo macnaha ka radiya can laxmi akhiihi bilgiibati walaalkii hilibkii oo la cunayo ninkii radiya kaana xaqan cala allaahi an yactiqahu min annaar ilaahay waxaa korkiisa xaq ku ah inuu naarta kaa xoreeyo haddaad ruux walaalkaa ah oo la xamanayo oo hilibkiisa la cunayo aad dadkii ka joojiso aad ka joojiso xadiiskaas axmed baa soo wariyey iyo tirmidi ayaa soo wariyey waana xadiis maaragtay saxiixa sida sheekhana sheekhulalbani uu inoo soo qariray idan waxaad u fiirsataa maxaa xantaba kugu wata soo in naar lagaa xoreeyo ma rabtid meelaha dadka lagu xamanayo ka jooji xanta dadka meelaha lagu xamanayo xanta ka jooji laakiin bal aynu fiirino maxay tahay dadka asbaabta horta in la xanto keenta asbaabtana ruuxa kale u xamanaya maxay tahay asbaabtani waynu isla tirinaynaa ilaa dhowr iyo 10 sababood baa keeni karta inuu ruuxa kale u xanto sababahaas waxaa ugu horeeya muxawalatu lintisaari linafsi ruuxa waa siyaro qabateene waxaad rabtaa inaad ka aargudasho weeyaan marka waxaad rabtaa inaad tafashi samayso tashafi wax la yidhaahdo inaad caafimaaddood ruuxa intaad aada u xamato markaas aada istiraahid waxbaad gaadhsiisay arrintaasi waa arrinta xanta keenta arrimaha xanta keena oo kale waxaa ka mid a labada ruuxoo sidoodaba xiqdi isu haya waxyaalaha joojin doona waan geli doonaa laakiin waxyaalaha keena waxaasaa ka mid waxaa ka mid oo kale iraadatu rafcati nafs inaad jeceshahay inaad dadka ka sarrayso marka sidee baad dadka uga sarraynaysaa waa inaad dadka kale wax ka sheegto dadka kale wax ka sheegaysaa fulaan hebel waxba nin yaqaana maaha waa daciif waa nin sidana maantoo idin dadka kale wax ka sheegi macnaheeduna waxaa weeye intaad ruuxa ka sheegaysa anigu ma ihi baad ka wadaa markaad hebel waxaasu yahay hebel waa jaahil hebel waxba ma ogo hebel waa sidan intaasoo cibaaraad ah ama hadalle aad ku hadlayso waxaad dhinaca kale noo sheegaysaa inaad adigu tahay nin fiican oo waxaas ku jirin waxaa kale oo xanta maaragtay inay socoto uusan ruux maalan asbaabta keena ah majliska oo lagu qurxiyo ood istiraahdi sheekada meel fiican bay maraysaaye ha qasi oo maalanba in uu ruuxii dadka sheekaysanaya intay qolo soo qabsadaan ay qoladii cunahayaan ama heer idil baa ahaadeen ama ruux keligii ha ahaadeen markii wax la xamanayo in uu istiraahdi haddaad joojisaan muu majlisku yaro xumaadaa ama majlisku uu maaragtay sheekadu ay kala istaagtaa waxyaalaha keena ayay ka mid tahay bal waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood ruuxii waaba ruux intaad u tagta keliya ad dhihi karto niyo waan ku xantay iska kii cafi meeshii kula gaadhabe ka waran haddaad heer idil xamato qowmiyad idil baad xamato reebel la yidhaah reebel gabdhahooda waa saa reebel raggooda waa saa reebel waa saas reebel nasabkooda waa saas
والآخرة غير هبل أو إذن هذا يصف قال الحاجات هذه أما قولي الحاجات هذه إلهي سبحانه وتعالى أي كعب صنو وعلى حتى كانوا حكم ذا أن روحه إنه التعجب إنه سمينا يلا مثلا بالروح بوكارك وح سمينا يا كل كاس يحولي هبل روح مجلس ينتور شيء أيوه حولي هاي نعمل بالله يا بي وح معصية أو خلطوا سمينا يا هبل مثلا بقى مجلس يقولوا شيء هاي هبل والنوع عصي النوع عص هبل وح سمينا يا نالكي هدول مثلا بالروايين ونكاس روح سمينا يكعيري مواسقة عادي أما هدول روايين نوجديجو مو يلاهدو ضد كنوع عصمين يمحيه لكن أترى هبل ومش سيار لعب هيارك وركيب أنا هالك مساج كورتس سيار للتاجر مارك ده ترى ما واحد ربطاين نكاح عيسو مثل واحد ربطاين نكاح سينو سيار كيس كده ومثال ما أنا هدول ربطاين نكاح سينو سيار كيس كده يا لا أتقيل هذا طبعا أمصلح أنت أشركت أما حدير هاي مثلا ما ضد كمالها سيار كعبة يس كده ينوك marka nin kasto sigaar cabo markaas ha iska daayadu gaadhi laakiin hebel hadaa tirid aad ku sheegtay adigii waa ninkaas waa xan weeye aad ku xamanayso waxa uu samaynayo sidii saxda ahaydna ma aha weygaad u raacayso waxyaalaha keenay ka mid tahay xasadka waxyaalaha xanta keenu ka mid yahay xasadku waxyaalaha xanta keena ayuu ka mid yahay oo ruuxa aad xasdayso inuu ruuxii xanto oo waxa uu haysto وليبنا وحيالها بابك حسد كمان كما هاللينه ومثلا ما إنه روحي لما يسوق درتين الحسد حمتنا لما ضوضبا والله ما أديك نبون كوكيريس أصلاً وحبة فإذا مويه وحلاله وحجارها يسجل فإذا أسوق هلا هيو وحويه إن صلاة هذه يصوم كاي يزكى هذه وحيود النصيني أن تكرنا خسارة هذه كسر قاعدة وتكو حول ويدي ووحي العبادة أهيد بالله قاضي تكرنا وحويان روحنا الحسد يسويه إلى هاي السيء وواحد كو حسد يسوي مع واحد بني آدم السيء وحو إلى هاي السيء مركز كو حسده معنى هذا واحد ضد قالنتها إلهي ويا مع الروح إذن هذه إنه قلنا ما أنه وحيالها داوضة حسد كمحوية والحسد وحلاها غيبة يا حنت السير استجدينا محا يقول عاونا يده إنا حتى يسكدايو أسباب تكاني كرت إنا حتى يسكدايو علاجكم محوية حنتي وعضو قلوبتا كلها علاجك مركب محوية علاجك علاجك مركب أوه الرئيسة روحوا وإنو أوغادو روحا حمانا ياي marka uu xamanayo ilaahay cadadiisi in uu u banbaxay ilaahay subhanahu wa ta'ala cadadiisa iskama ilaalin karin iskama cilin karin hadii uu ruuxu dunuubta noocaas oo kale ku jiro ilaahay ridihiisa raadina laakiin ruuxa xanta sameynay ee muqtaabka ee dadka hilibkooda cunaya waa ruux ilaahay cadadiisi ku dhacayo nabiguna wuxuu yiri inna ahadakum لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ فتكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو إن الرجل لا يتكلم روحه حقوق الله كلمة وإلهي رضوانه إلهي راليها شيسة كلمة حقوق الله كلمة في عنوي لكن ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها إلهي بمركز صوت هذا وحقوق هي خدوانه إلى يوم يلقاه هل كلمة تري بو إلهي وحقوق هي نكن رالبا نكن قنينا أو إلهي رليه يسيبه هلي إيراني أهانشيسي إلى يوم القيامة وهل كلمة من رضوان الله وكلمة قلبها كسر قضي وناكسن أو خير فكرة في عن أتكنتي أو إسلام كقصة بيرسي إيه حق فكرة في عن أو مثلا روح وتشادسي أو وناكسن أو أنا أقول إصلاحي مال بيبقاريسة
wax badan bayba tahay baad lahayn buu ilaahay wuxuu kugu qorayaa inaad alle raalli ahaashihiisa yeelaysa ilaa yawmi yalqaahu ilaa maalinkuu ilaahay subxaanahu watacaala la kulmayo waina axadakum la yatakalamu bilkalimati min sakhat illahi maa yadunnu an tablug maa balaga fayaktubu allahu calayhi biha sakhatahu ilaa yawmi yalqaahu deetana ilaahay subxaanahu watacaala ruux baa kelimad ku hadlahaya oo ilaahay cadhadiisa ah oo uusan islahayn meel fog bay gaadhaysaa oo ilaahay uu qorahayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala sakhadiisa iyo cadhadiisa uu ruuxaasi ku sugnaanayaa ilaa yawmi yalqaahu ilaa uu ilaahay kala kulmayo idan afkan in la ilaaliyo wey waad garanaysaan cumar abubakar carabka intay saa u qabtaan ayay odhan jireen kanaa meeliga riday carabkooda intay qabtaan carabkooda saa u qaban jireen idan haddaad og tahay in ay arrintaasi jirto inaad ruux xamato miyaysan aynan ahayn inaad aada uga fogaato aada iyo aad inaad uga fogaato wey waxaa kale oo aad kaga fogaan kartaa xanta ruuxan aad xamanayso asbaabta aad u xamanayso waynu soo sheegnay waa ruuxaad necab tahay waa ruuxa idin dhex mareen waa ruuxaad rabta inaad ka argudato waa ruuxaad rabta inaad wax ku samayso waxaasoo idin asagoo ah ka waran cishihii hadda aad tukatay casarkii aad tukatay sadaqadii aad la baxday masaajidkii aad dhistay wixii aad samaysay oo idin haddii asaga faylkiisa loo wareejinay faylkiisa ma aragtay oo adiga kaagii laga tirahayo xasanaadkaagiiba asaga haddii loo wareejinayo marka ruuxaad lahayd cadow baanu nahay maxaad ugu shaqaynaysaa welibana maxaad acmaashii wan wanaagsanayd u siinaysaa ruuxa marka aad xamanayso asaga adiga khayrkaaga la siinaya wixii khayr ahee laguu qorayba asaga la siinaya haddii khayrba lagaa waayo adig ka war khayrba haddii lagaa waayo maxaa la samaynaya ruuxaad xamanaysa dembiya inuu leeyahaa la fiirinaya wixii uu ruuxaas aad xamanaysay dembi uu lahaa baa la soo qaadayaa adiga lagu saaraya ruuxa mufliska marka ee caydhaa uu nabigu yiri ruuxa caydhaa ma taqaanaan ee waxba haysanin qiyaamaha waa ruuxa noocaas oo kale waa ruux qiyaamaha imanaya asagoo dadkii bini aadamkii kan xantay oo kan dilay oo kan dhacay oo kan wax ku sameeyey oo muslimkii oo idin wax soo gaadhsiiyey deetana xasanaadkiisii oo idil baa la qaadayaa oo qolyahaasaa laga siinaya waa qiyaamaha ma adigaa raba maalinka qiyaamaha hal salaad inaad weydo ama sadaqa aad la baxday oo islahayd rajada kugu weyn waataa in maalinkaa lagaa qaado weliba nin islaahayda ama gabadha islaahayda waxbaa idinka dhexeeya in lagaaga qaado maalinkaa yaa raba nina ma uu rabo deetana waxaa la yidhi markii xasanaadkiisii ay dhammaadaan baa dadkii qaar baa weli fayl soo saaran ilaahu ana reer hebel baan ahayo maalinkii reer hebel uu caayayo ugu dar ilaahu ana dembi waxbay ku sheeganayaan xasanaadkii oo idinla waa laga qaaday deetana waxaa laga soo qaadayaa dadka dunuubtoodii deetana asagii baa la dul saarayaa kadibna naartaa lagu tuuraya ilaa wax macno lama ahay idan haddaad arrintaa og tahay ma aday tahay markaa inaad waxan arrintaasi ruuxa muslimka ee caqliga leh waa arrin ka joojin karta xan oo idil adiga ma carabka yaadan istaajin karayn miyaadan iska aamusi karayn khayr mooyeene shar hadday noqoto saxaabada fiiri salafuna saalix markay intaynan hadlin bay kelimada xisaabin jireen qaarkood waxay leeyihin wallaahi maanan kelimad ku hadlin aanan kolkii hore xisaabinin oonan u yeelin maaragtay faruur xidh iyo hoggaan kelimad kastoo iga soo baxayso oonan u yeelin faruur xidh iyo hoggaan macnaha kelimadda iga soo baxaysa dhowaan haddii la i weydiiyo oo la yidhaahda maxaad u tidhi anoo ka jawaabi karay saas iyo saasaan u idhi waxaas waxaa looga cararayaa waxa weeyaan waa xanta iyo xumaanta ay leedahay xanta iyo xumaanta ay leedahay idan asbaabta kaa joojin karaysa xanta waa saas asbaabta kaa joojin karaysa xanta waa saas waa cilaajka ama daawada xantay ka mid tahay waxaa kale oo ka mid ah
haddii waxaad ruuxa kugu qasbaya inaad xamata ay cadho tahay waxaa jira asbaab cadhada lagu tirtiray asbaabtii raadso ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqo shaydaanka iska naar waa xoolo shaydaan cadhadu shaydaanka iska naar meesha aad joogto weysayso meesha aad joogto ka leexo xaaladaad ku sugnayd mooye xaalad kala gal ruuxu markuu cadhaysan yahay oo uu halkan afka abuurka ku tuuraayo oo uu soo socdo waxaa la rabaa inuu shaydaanka iska naar waxaa kaloo la rabaa inuu soo weysaysto waxaa kaloo la rabaa xaaladdu ku jiray inuu xaalad kala galo hadduu taagnaa inuu fadhiisto meesha xataa hadduu iskaga yara dhaqaaqi karo inuu iskaga dhaqaaqo inahaas hadduu sameeyo way ka tegaysaa waxyaalahaasoo idil oo cilaaj iyo waxay u noqonaysaa in uu ku gaadho dhowaan wuxuu ka shallaayi lahaa inuu kaga baxsado idan ayuha alikhwa walakhwaat xantu waa shayga sidaa u xun xantu waa shayga bini aadamka muslimka ah intuu laga yaabo inuu wax badan ka dhowrsado oo uusan ribo qaadanin oo uusan zinaysanin oo uusan waxba xadin oo uu maaragtay gabadh hadday ahayd xijaabkeedii iyo asturkeedii iyo xishmadeedii iyo maaragtay xayaageedii kaloo idin ay wadato deetana ruuxa isagoo sidaas ah baa waxaa laga yaabaa inuusan ka dhowrsoonin intuu hadlo inuu dadka kale hilibkooda cuno dunuubtu marka xataa siday u kala waaweyn tahay xataa inaad ogaato wey dunuubtu siday u kala waaweyn tahay inaad ogaato wey naftaada inaad dahirto oo dadka kale nafahooda iyo ceebahoodana aada uun aragto waxa weeyaan aday ceeb kugu tahay ruux kasta oo innaga ina ka mid ahay ceeb iyo iin iyo meel uu la-yahay baa jirta meel uu taksiir ku leeyahy ka gaabinaya ayaa jira haddii aad hadda intaad buuq qaadato inta wax id ku jirto ee dembi a ruux uu asagu naftiisa isku noqdo dadkaa kale ceebahooda uu iska daynaya dadkaa kale ceebahooda uu iska daynaya war imise salaadooda sunnaad salaadaada raacisay imise salaadooda imise maalan soon oo maaragtay aan ramadaankii ahayn baad soontay imisaad qaraabo xidhiidhisay imisaad dikri samaysay wakti xanba uma haysida maad adigu isku noqotid weeye ruuxu marka dib isugu noqdo oo taqsiirka uu ku jiro uu arko dadkaa kale way ka nabadgelayaan asbaabta marka cilaajka ayay ka mid yihiin ruuxa uu naftiisa ku cilaajin karayo dariiqada looga toobad keeno xantu marka walaalayaal waxa weeyaan inaad ruuxii aada xamatay intaad u tagto aad ka xalaashaysato oo tiraahdi iska kay cafi waan ku xantay arrintaasaan kugu sameeyey iska kay cafi arrintaas waa arrin muhima ruuxa aada xamanaysay inaad u sheegto welibana inaad u sheegto tirahdid meel fagaaraan kugu xantay keligay 2 nin baan ahayn sidanaan ahayn inaad tirahdid waxaa dhici karta markaas haddaad sidaa tirahdid fitna ka badanba inay ka dhacdo oo ruuxii colaad uu ku qaado oo shaxna uu qaado oo wax maalanba intiiba ka badnayd aada ogeysiin lahaydba uu qaado ruuxa hadday arrintu sidaa noqoto ruuxa waad u ducaynaysaa ruuxaas waad u ducaynaysaa sadaqadaad badinaysaa khayrka ayaad barinaysaa waxaad badinaysaa majaalistii aad isaga ku xaman jirtay baad ruuxii khayrku ka sheegaysaa meelihii aada xumaanta uga sheegaysay baad wanaaggiisa sheegaysaa ilaa ruuxu wanaag buu leeyahay dhinaca kale wanaaggiisa ayaa meelaha kale ku tirinaysaa marka waa inaad ogaataa ruuxu carabku asagoo ruuxiiba maalan ba aadan la joogin buu jaraaxaynaya oo waxyeelahaya saa darteed waa in aada ruuxii khayr sharka ka sheegtayna haddana khayr sheegtaa sababtoo ruuxu sharna waa yeelan karaa khayrna waa yeelan karaa laakiin shar keliya oo socda ma waa ruuxii muslimka ahaa waxyaale waxaa jira maalanba aan xan soo gelaynin haddii aad maalanba ay maslaxa guud ay tahay oo ruuxu tashi ahaan kuugu yimaado maalanba nin hadduu ku yihahdo niyahow ama maalanba ninkaasaan gabadhu rabaa gabadhaas noocaas iyo noocaasa bal ninkaa ka waran ninkaas maalanba haddaad wax ku og tahay haddii ay isaga iyo gabadhan isguursadaan laga yaabo heerkaas inuu dhowaan sida laga moodahayo ninkaas uusan ahayn waad u sheegaysaa naseexada noocaas oo kale ah waad u sheegaysaa sababtoo nabigu calayhi salaatu wasalaam
maaragtay wuxuu ku yidhi gabadhii macnaha weydiisatay talada wuxuu yidhi ama abaa jahm falaa yadacu casa can caatiqihi wa ama mucaawiya fasacluukun laa maala lah gabadh baa waxaa soo doonay mucaawiye iyo abu jahm kolkaasuu nabigu isagoo gabadhii maaragtay naseexo siinaya wuxuu ku yidhi abaa jahm ninka la yidhaahdo falaa yadacu casa can caatiqihi usha kama dejiyo degtiisa oo ushii garabku ku wataa naaguhu garaacaa miya oo ushaas garabku ku wataa miya mise wuu safar badan yahayo macnaha had iyo jeer baa ushiisu halkaas u saaran tahay wuu safar badan yahay labadaba culimmadu way ku micneeyaan ama wuxuu yidhi mucaawiye fasacluukun laa maala lahu waa ninaan xoolo lahayn oo cayna laakiin waxaa kugula talinayaa buu yidhi inaad guursato usaama binu zayd marka taa waxay ku tusinaysaa naseexada noocaasi inaysan markaas aysan xan ahayne ay ahayd maalanba ruuxa maadaama uu naseexo ku weydiiyey sidaasoo kale ah inaad ku xadgudbaynin oo intaan dhaafinaynin intii lagaaga sheegay inaad weydiiso intii lagaaga uga jawaabto waxaa kaloo maalanba ruuxu aan xan ahayn haddii maalanba lagu dulmiyey ood leedahay hebel bee i dulmiyey waxaas igu sameeyey ood ruuxa xaakimkaa ee wax kaaga qaban kara aad u sheegayso ma inaad adduunka ku faafinaysa ma aha laakiin waa inaad ruuxii wax kaaga qaban lahaa aada u sheegaysa wey haddaad maalanba ruux munkar samaynayo ood ruux kala rabto inuu munkarka kula dooriyo waad dhihi kartaa nin hebel baa munkarka noocaasa samaynaya waana keri waaye kaala iila tago wax aan ka qabane sidaasoo kale markaas sidaa waxaad aragtaan ruuxa xataa waxaan samaynaya ayay maslaxa u tahay adig keliya ma ahayd mujtamaciina maslaxay u tahay ma aha inay ahayd inaad rabtay inaad ku caafimaado xanta ood ruuxan ka eergudato ma aha idan ayuha almu'minuun arrintaa waa laynooga digay digniyo aada iyo aad u badan baa laynaga siiyey waxyaalaha ugu nacfi badan ee digniinteennaas aan wax kaga qaadanaynana waxaa weeyaan war cibaadada ilaahay aynu shaqaysanayno camalkan laynoo qorayo astaqfirullah allahu akbar laa ilaaha ila allah adkaartan aynu akhrisanayno dad kale ha u shubin oo fayl dad kale ha ugu wareejin taas waxaa wareejintaa keenaya haddaad dadka xamanayso xanta jooji arrinta kale ee xanta u dhow waa namiimadu waa maxay namiimadu waa aafo kale weeye iyaduna oo cudurrada mujtamaca ku dhaca weyna inaga buuxaan markaynu xaqiiqada isu sheegayno xanta iyo namiimaduba waxyaalaha aynaan wax badan aada moodidba inaynaan danbe aada uga lahayn wey masaajidaday galaan dadka xijaaban bay dhex ku jiraan dadka wadaadaday ku dhex jiraan dadka muslimiinta ahay ee weliba meelaha cibaadaadka joogay ku dhex jiraan waa markaynu xaqiiqada isu sheegayno waana khatar weeyaan khaatumada ilaahay baa haya subxaana wa tacaala khaatumadeena haddaan rabno in laynoo hagaajiyo oo aynu cabsanayno inuu ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsanayno cadha ilaahay inay nagu dhacdo waa inaynu arrimahan iska ilaalinaa sababta ayaga cadha ah ayaga ayaa cadha hadda telefoonno free ana waa la wada haystaa telefoonno free oo intaasoo minidoo free ah iyo line to line free ahoo laga yaabo caawa in ruuxu inuu sidaas uu maaragtay u sii daynayo oo uu isu keenayo intaasoo qolo wax ma maqasheen waa maqasheen baa socota iyo maxaa jira iyo waxa noocaasoo kale ah dadka muslimiinta ihi way ka cagan yihiin marka waa inaan ka caganaana waa inaan arrintaa ka caganaana namiimadu waxaa weeyaan waa inaad labada ruux warka u kala qaado liwaj alifsaad waa si aad dadka labada ruux u kala fogeyso hebel baan maqlay saa iyo saa saas soo kuule baad mid u sheegaysaa ruuxaas labadaa ruuxi cadaawa kaan waxaa laga yaaba intaad soo qaado inaad ka kale u sheegto deetana suuqa ayaa waxaa gelaysa ma maqasheen hebel baa hebel saa ku yidhi hebla saa ku tidhi hebla intaasaa soconaysa intaas ayaa soconaysa
لا يدخل الجنة نمام والنبي عليه الصلاة والسلام رواية بصاصة إمام النووي لا يدخل الجنة نمام قطات نوى إلى هذا نمام روحي جنة ما قال هاي روحه وحس كدر دروي نميمضو سحرك أو كلوي نوع سحرك مثلا بسودو أفسادي أو كله أي مجتمع أفسادي سحرك وواحد مثلا بروح إلى السحر ولا جاي ونكي ناكتي سنة كوكرا دقاقان نكي ولالكي أدركي إلى كوكرا دقاقان أو ما ركتي نميمضنا واساس أو كله سيدي وأفسادي سو أو أي مجتمع أفسادي سو واساس أو كله ما لو سوى لي بس سحر كوكارسي سنة بيسي كارسي سنة أيضا مجتمع ولا نولا أو ولا لا أها أو وحبة السوق بين بوحى جاري كرتا إنا إصلاح لين أو ولبنا أي كتلة إنا إسحنتا هذا الكلام نمي ماذا يدوك على قاعدة درته هذا الكلام يدوك على قاعدة درته أي على يابا إنا المجتمع سيكون بابان نمي ماذا حراوي إلهي سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزي هماز مشاء بالنميم لغو معناها عايي ما ركتي ضدك قال هذا هاي الحما لا يدخل الجنة قتات بالنبي عليه الصلاة والسلام قتات جنة مجل هاي وروح النمام كأ هو النمام قتاته حديث صحيح البخاري ولي قتادي جنة مجل هاي ضدك النمامين تا ضدك إفسادية ورك أكل ما ركتي قال كوا ويان بل أن نبي عليه الصلاة والسلام وحنا شيء إنه صامر إلى ما قبره العذاب هيو أما أحدهما متكون وحيري لما قبره العذاب هيا أما أحدهما لا يستتر من البول متكودي كادي ذا ما أوصل إسكيلان تشرين وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وكان الآخر يمشي بالنميمة فكان النميمة أي أسعون تشرين وحشاك شاقا وضدك لك شكا لا قاضيو وسعون شري انتان آخرا لقارين يوم القيامة عذاب القبر جي أي نميمدي وحكوكو يليسا لقوا عذابيا عذاب القبر جي با يكوكو إيماني وحيالها عذاب القبر كينا كمتا إلا أن يكون هالشيء يا تشعل مركي لغا قبر إن هلك عذاب أبو يمادو laba ruux oo uu dhaxdooda balaayo dhigay dadka laba ruux oo uu macnagtay dhaxdooda ifsaadiyay darta mujtamaci wuu sii soconayaa fasaadkii group baa la noqonayaa sheekadii halkaas waxa idin la waxa laga yaabaa hal ruux inuu bilaabay sida dabka deetana uu sida u baxayo intaasoo muslim ay ku gubteen wayna dhacdaa waxyaalaha mujtamacaadka fasahaadiya ee kala fogeeyana namimada ayaa ugu daran ruuxa namaamka ana waxa weeyaan asaga waxa soo gaadhaya dambi cadaabul qabri naar mooyeene inta bini aadamka uu gaarsiinayo dadku way isxamanaya oo way isnaceen oo way colaatameen asagana waxa soo sabab ah oo waxa soo wada xambaaraya maxaan ka sameeynaa marka hadii ruux kuula yimaado arin sidaas oo kala warxumateesh shiilka hadduu ku yimaado maxaad ku odhanaysaa imaamu nawowi wuxuu yidhi wa kullu man xamala ilayhi namiima ruux kasta oo arrin namiima ah loo keenay waqiila lahu fulaanun yaquulu fiika oo lagu yidhi hebel waxaasu kugu lahaa ow yafcalu fiika kada facalayhi sittatu umuur lix arrin baa laga tahay inuu sameeyo haddii intuu nin sheeko ku keena uu yidhahdo hebel baa maqlo oo heesaa kugu leh ama waxaa lagu lahaa saa waxaa jira waxa la yidhaahdo maaragtay guux baa jira guux hama maqashay waxbaa jira waxbaa kacsan baa lagu leeyahay waxbaa kacsan haddaad maqasho meesha xan baa timid namiimaa timid dulwajhayn laba waji ruuxa lebaa yimid mujtamaca balaaya yaa kicisay inta مثلا بهدين الصوماليين هاي في التانك إيه الصعداء إلى مثلا لا تنسنا إنها هيستا قلبة كشر رئيسه وشر رئيسه وحاس قلب بهاستك وحينس
dembigeeduna qol yu maaragtay yaa fooda ku wada qaadanaysa oo asbaabta keentay inta kalena dembigooda ay ku raacayaan marka haddii lagu keeno hebel baa saa kaa yidhi ama kugu laha ama aanu ka maqalay waxaa kugu waajiba waxaa la yidhi anlaa yusadiqu horta waa inuusan rumaynin lianna namaama faasiq wey ruuxa warka qaadqaadaayo horta waa faasiq faasiqana idaa jaakum faasiqun binabayin fatabayanu wey in jaakum faasiqun binabayin fatabayanu kolka hore faasiqa waa inaad warkiisa aadan rumaysaninba sideedaba hadduu faasiq yahay ruuxa namaamkaana waa faasiqisaa ogow tan labaadna waxa weeyaan inaad ka istaajiso ood u nasteexayso oo tiraadiniyo waxaad iskaga baxdo tan saddexaadna waxa weeyaan inaad ruuxa ilaahay dartii u nacdo warka kuu keenay ilaahay dartii inaad u nacdaba ood ka joojiso sababtoo ilaahay agtiisa ninkaasi ruux fiican ma ah dadka bini aadamka isku daraya afraadna waxa weeyaan ruuxa walaalkaa wax kaaga sheegaya inaad khayr u malayso u malee khayr aday kuu fiican tahay isagana ugu fiican tahay ta shanaadna waxa weeyaan wixii uu kuu keenay waa inayna adiga kugu xambaarin inaad dib u raadiso haddii lagu yidhahdo ninkii hebel aha waxaas kugu lahaa nagaa maqlay asagoo waxa kaa sheegaya naama maqashaa heblaay gabadhii heblaay saasay kaa kugu tidhi haa saasay ku lahayd haddaad adigu markaa aad markaa raadin gasho oo aad tan wacdo ood kaa wacdo oo tiraad maxaa la yidhi maxaa laga oo aad wixii aad damacday inaad raadiso adigii waxay noqonaysaa dee inaad waddadii u tagto marka waxba ha raadinin waa inayna arrintaas kugu xambaarin inaad raadiso ta kalena waa inuusan ruuxu naftiisa ilaan asaga laftiisu raalli ugama ahee waxaa loo soo sheegay walaalkiiyo kalena waa inuusan raalli uga noqonin arrintii way xallisantayba waddadaa saxda haddaan marno waddada unbaa khaldana haddii waddadaa la maro arrintii way xallisantayba warku hadduu soo baxo lama sii wado warka in lasii faafiyana ma aha in fuxshiga ama xumaanta suuqa lagu sii faafiyo ilaahayna subxaana wa tacaala aadaab buu ina baray haddii aynu wax maqallo ay tahay inaynu u qaabilno aadaabtaas waxa weeyaan marka ugu horeysa horta waxaa rumaysan marka labaad haddaad maqasho ha sii raacraacine naftaada khayr u sheeg waxaa laga yaabaa marka haddii ay maalan naftaadu ay yaro kooto oo istiraad wallahi waxaas waxbaa ka jira oodan weli laakiin ficil samaynin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ina allaha tajaawaza liummatii maa xadaat bihi anfusuhaa aw maa xadaat bihi anfusahaa waxay nafteeda ugu sheekayso buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadayda loo dhaafay maa lam taqul aw tafcal haddaad maalan ma naftaada aada markaa wax ka dareento haddaadan action la qaadin ficilla aadan ku hadlin ilaahay wuu ku dhaafaya marka isku day inaad halkaaba ku joojiso ta kale ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu ha noqon oo markii aad wax maqasho ha noqonin id talaqawnahu bialsinatikum sheekada markii aad afka aad kula kulmayseen wey adaa afka ka sii daynaya ma maqasheen waxaas la yidhi waxaas is yidhaahdeen waxaasaa socda suuqa saasaa ku jirta marka adiga tidhaahdid ka kalabaad afka ugu ridaysaa asna afku kaaga qabanaya afka ayuu sheekadii ku ilaa wax xaqiiqaa ma ahe wuu sii daynayaa mid kaloo afka ugu dhiibaya id talaqawnahu bialsinatikum carabkiina iyo afkaad kula hadlaysa waxa maalan ba aad ku hadlaysaana waxaa laga yaabaa dad muslimiina wax ka sheegood inay yihiin marka waa inuusan sii faafinin maalan adiga hadday ku soo gaadho arrin xun oo suuqa ku jirta ha ka sii sheekaynin aadaabtu waa saas qur-aanku ina baray adigu arrintaas ninaba ha uga sii sheekaynin halkaa ku jooji sababtoo adiga haddaad mid u sheegto kii kalena laba usii sheegi tii kalena waxaa laga yaabaa intay telefoonka qabsatay inay 5 kale usii sheegto deetana magaaladii oo idilba inay wixii sidii maaragtay dabkiiba ay gaadhaba marka ha sheegin halkaa ku jooji
kii kuu soo sheegayna u nasteexee idan mujtamac isjecel oo wax badanna u kala qorsoon yihiin sidaana ilaahay uu ku caafiyey bay markii mujtamacu noqonayaan haddii ay sidaa ku dhaqmaan idan waxaa jira waxyaalaha walaalayaal aynu maalan ku joojin karno aynu ku maalan mujtamaca kaga istaajin karno namiimada ee cilaajka u waxa weeyaan waxyaalihii aynu xanta ku soo marnay ee cilaajka iyo daawada u ahaa ayaa ayadana lagu joojin karaya sababtoo ayadu waana xantii waxay laakiin la dheer tahay laba ruux oo kale ayaad isku macnaha ayaad dhib u kala keenaysa labada ruux oo kale ama mujtamac idil ama laba guruub ama laba qabiil ama laba dheeshiba isku diraysa taas ayadu ay la sii dheer tahay idan arrintaas waa arrin muhiima waxaan ogaanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aad awliyadiisaas dadka muslimiinta ah ku taagan tahay inuusan ku iloobaynin oo ilaahay subxaanahu wa tacaalana lama dagaalami karaysid ilaahayna dagaal buu kuu caddaystay man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarbi dadka muslimiintaana awliye badan baa ku jirta warna uma haysid idan xantooda iyo namiimadooda labadaba iskada dulwajayna ha noqonin laba wajiile ha noqonin laba wajiiluhu aakhira wuxuu imanayaabaa isagoo laba carab oo naara leh laba carab oo dab ah isagoo le naar ah ayuu imanaya dulwajaynka waxaa la yidhaahdaa ruuxa kana u tagaaye wax u sheegahaya kaana u tagaaye wax u sheegahaya kaa wejigu ugu tagay kaa wejigu ugu tagay waa kala duwan yihin waa nooc marka nifaaqa ka mida weeyaan qoladan wuxuu dabcayaa inuu iska dhiso qoladaana wuxuu dabcayaa inuu iska dhiso qoladan waxay jeceshahay buu sheegayaa kuwaana waxay jecel yihiin buu sheegayaa waxa weeyaan waana arrin khatara weeyaan idan waxaan rabay inaan hal xadiis oo ku saabsan arrimahan dadku waxyaalaha maalan carabada ka sheegayaan ay sii faafinayaan ku saabsan aan halkan aan inooga sheego oo allah subxaanahu wa tacaala ha inugu anficee dad badan oo muslimiinteenna ka midana aada moodaa inay maanta ku dhex jiraan maaragtay ku dhicitaankiisa ilaahay subxana wa tacala ha inaga badbaadiyey nebigu wuxuu yidhi habeenkii lay dheelmay buu yidhi oo maalan jibriil uu qaaday uu kor la aaday ba waxaan soo marnay buu yidhi nin baan soo marnay buu fadhiya ninna korkiisu taagan yahay buu nin baa fadhiya ninna korkiisu taagan yahay ninka korka taagan markaas wuxuu wataa buu yidhi bahal kalaaliibta baasha la yidhaahdo waa birtan hilibka maalan masaa loo soo suro oo kale oo saa usoo leexan marka uu kor taagan yahay buu yidhi marka birta ayuu ninku wuxuu yidhi halkaas afka ah shidqigiisa ayuu kaga qabanaya kolkaasuu jeexaya halkaa qadaadku keenaya dhinacii kale usoo wareegaya dhinacii kaleu qalka kaga qabanaya wuu jeexayaa jidhkan madaxiisa oo ilbuu soo goynaya xaggaas qadaadka kaleu keenaya intuu tan kusii maqan yahay tii kalea bogsanaysa wuu ku soo noqonayaa deetana saasuu keenaya ninkaasi saasuu ku jirayaa ilaa qiyaamo maalan qiyaamu saaca ay maaragtay ka dhacdo marka jibriil baa weydiiye waxaan ku yidhi buu yidhi maxay yihiin bal ii warram arrintan bal iiga warramayni buu yidhi maya xadiiskaasi kii ma aha jibriil ee waxa weeyaan nabigu wuxuu yidhi wuxuu ku riyooday isagoo laba nin ay qaadeen oy macnaha deetana dadkanuu sii maray kolkaasaa waxay dhaheen buu yidhi alladii ra'aytahu yushiqu shidqahu fakadaabu yuxadisu bilkidbati fatuxmalu canhu xataa tabluqa alaafaaq fayusnacu bihi maa ra'ayta ilaa yowmi alqiyaama ruuxan hadalkaa ku hadlahaya been buu sheegayaa beentaasaa waxay tahay aafaaqday gaadhaysaa hadda maanta waxaad arkaysaa ninbaa internetku wax ku qoraya waxba kama jiraan
adduunka oo idil baa lagaga sheekeynaya ha wararka qoran miyaydan ogeyn waxaasaa la yidhi waxaasaad maqashay waa la yidhida suuqa socoto wey nabiguna qiila waqaaladaa wuu inooga digay qiila waqaaladaas wuu inooga digay oo waxyaalaha maalanba beenta aafaadka lisaanka carabka ayay ka mid tahay laakiin maanta baabka beenta kama hadlayna laakiin sida uu waxaani u faafahayo adiga markaad ku tidhaahdid hebel baan waxaan ka maqlay haddii xaqiiqo lagu weydiiyo waxba xaqiiqo ma hays waad maqashay marka waraad maqashay oo laga yaaba uusan san lahayn weeyaan waxa aad wareejinayso intaad marka wareejin lahayd baa waxay tahay ayaa awlo ah inaad iska daysood iska aamusto idan ayuha almuuminuun waa nasteexa naftayda ay ugu horeyso iyo dadka muslimiinta ahee wada dhegaysanaya arrinta xanta iyo arrinta namiimada iyo laba wajiilannimada intuba waxyaalaha ruuxa muslimka ah baabi'iyo diintiisa ka mid tahay ajrigii uu ilaahay subxaanahu watacaala siiyey ee uu intaa usoo shaqaysanayeyna waxyaalaha tirtira ayay ka mid tahay ruuxa muslimka ah marka aamusnaan ayaa korkiisa ahaatay ruuxu waa inuu aamusnaadaa intaad aamusnaan karto aamusnow sheekooyinka iyo hadallada iyo shirarkuna alla wuxuu ku sheegay laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas shirarka badan iyo arrimaha badan iyo waxaasi khayrba kuma jiro ilaa dad amrahaya ina dad sadaqa lala baxo ama macruuf ama dad iskhilaafsan la islaaxinayo mooyeene waman yafcal dalika ibtiqaa mardaati illaahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima laakiin ruuxii u shira ama isugu yimaada ama u shawra intaas ilaahay subxaanahu watacaala oo ilaahay dartiina u samaynaya ilahay ajri weyn ayuu siinayaa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waxaa jira ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igu inoo wakaashay oo hadal kasta oo inaga soo baxa ku hadlaysa carabka marka waa in la ilaaliyo in alcabda la yatakalamu bilkalimati ma yatabayanu fiiha yanzilu biha fi nnaari abcada maa bayna almashriq wa alla subxaana nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas oo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruuxu kelimad buu ku hadlahayaa oo uusan si fiicanba uusan u xaqiiqsanaynin oo uu naarta ugu dhacahayo mashriq iyo maqrib inta u dhaxaysa riwaayaad kale waxay ahayd oo riwaayat fi muslima in alcabda la yatakalamu bilkalimati ma yatabayanu ma fiiha yahwi biha fi nnaari abcada maa bayna almashriq walmaqrib naarta ugu hodanaya idan kelimo keli ah oo aad tidhi baa waxaa laga yaabaa in aad fii jahannama 70 khariifan 70 sano 70 dayrood aad jahanamo hoos ugu sii hobanayso 70 sano ood hoosun usii socoto jahanamo hal kelima waa hal kelima idan carabkan hala ilaaliyo carabkan hala ilaaliyo nabigu calayhi salaatu wasalaam man yadmanu maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna buyi yaa ii damaano qaadahaya waxa labadiisa garh u dhaxeeya ama labadiisa boodiye waxa u dhaxeeya oon aniguna janno u damaano qaada yacnihii labada af waxa u dhaxeeya labada garh waxa weeyaan carabkani labada boodiye waxa u dhaxeeyana waxa weeyaan xubinka taranka labada ayaa xifdinaya oo aan janno u damaano qaadaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idan haddii uu maalanba ashyaada ruuxu uu hayn karo oo carabka uu ka mid yahay hadduu ruuxu iska aamuso waxaa laga yaabaa inuu shaydaanku ku yidhaahdo wani oo nacas baaba tahayba maba hadlaysidoo ma sheekaynaysidoo ma kaftan badan ma liidoo dadka laakiin waxaa laga yaabaa ninku intuu fadhiisto inuu kaa laaco oo tv-ga waxa ka soo baxay dadka ka soo baxay oo idin u wada xanto oo qolo la sheego oo uu xanto oo asaga mooyaan dadka kale oo idin u wada baabi'iyo miduu jaahil ku tilmaamo miduu xaqiro miduu heerkooda xaqiro miduu xanto mid maaragtay mid kala xamata dumarka
وخاصة دمرك أن هذا الله رجنا حنت وايا قنان دمر كنا وايا قنان لكن waxa hadda inuu kordhay waxa weeyaan gabadheedu kaliya gurigeeda iska joogta oo ruux badan ciyaalkeeda ma wax kale la hadasho aan joogin mushkilada waxa laga yaabaa inta soo qaadato baalka telefoonka inay hebla la hadasho haddaad hebla la hadlayso telefoonka qaadatay ima inaad qaraabo ku xidhiidhinayso ima inaad gabadha walaasha ku booqonayso booqasho caadi ah macnaha seetaay ciyaalkiisa yihiin ay tahay إما إن درسي أتصور قاعدتين وحكي ويدينيسو أما أد فائدة ويدينيسو ويب سايت خير كان وشة حجيب كتير وكلاء لكن أنت قاعدته بالورم محل يجي محل نيلها وحي اللي يجي ويفربني مؤكتها واحد عين واحد صعد مياه مقل هبلا مياه أنا واحد كنا عين oo sheekadu halka garto arintii way xumaatay saadarteed haday ku soo dirto mid sida raadinaysana shaqooyinkaaga ka qabso aduguna sida ha u dirin telefoonka sababtoo ah markaad qabsato shaytaanku asaga ayaa ka xariifsano takhalkhul bumeeshi gelinaya iyo iska sii yara wadba iyo walaasha hadalkaaga ku goynin iyo walaalkaaga ku xumaynin تنا وحلاقة يا باين لجوبا آخر السنة أرنت عصاري خطرو رجع ينتمر كنا بأرنتو وطلع عن إله سبحانه وتعالى كجعب سن روح قصدا عذاب القبر باتشرا وحيالها نسكو عذابنا وين أرن ما أنا كهل لناتشر وحن ربينا إن يرى أن موضوعا عن قصة سنين عن مدير قصة إن شاء الله تعالى عن مدير كويرا كرمر أرنتاس وحويه أرن مالنا ودنا لقى شنقليه وحا ليلي وحابضتي استرسكي نورك استرسكي اللي يجري بابتي استرسكي مركا روح مركو استرسكو كله وحويان واسكاد هذا يا ماتو على يا بابا إنه قرأ اسكا قبصدو على يا مركز من تشردو على يا إنه واشو ويلا والله توسع له أما هبل بيسوي فيرني أما كائن تشتوس يانو ملاينيا أما أنا قراء هالكا جاري كنت تايقا فيرسانس هالكا سولة جليا وحلاقيا مركز دمانين وكوع رفتبا استراسك وحال الشيء لخاطيرتو الشيغانين وبدنيه وليبا الدمرك وآذو بدنيه أن ضد بدن يداوى قاتل وحن الداوى ما أهمية استراسك سحاجيبو كين مروح وحو عليم يواي ومايا ما ماله سيحدو لا يهي ومايا معيالك اسكول iyo meel iskuul waay waa maya marka waxaan xagaabo ka imanaya waxaad ogaataa waxaan stresska leedin sheegayo ee leedin wax magac kale leeynoogu sheegay waa maciishatan danka weey nolosha kugu adkaato nolosha kugu adkaata maxaa keena marka ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذكرك إلهي هدات كلا حتى نولا أذك بجلسة نولا الشاء أذك أد قشي وحي كان يساو عذر لي هذا ستريس ضقلي حرج قيلو إسلاميه يرقي أو معركتي قريه أو أنه وحبة كوبنه لبقى تبقى أي تاين انتاس أو كيس أيالان oo macnaha markii aad sii daba gashana oo gabadhiina gooni u waraysato ninkiina gooni u waraysato wax badan oo meesha yaalaba aysan jirin laakiin labada ruux mid isku buuqsan yahay idan dhikriga ilaahay ha lagu noqdo adkaaru sabax wal masa arabkaaga dhikriga ilaahay ka qoyanaado waxa la shaka waxa hada dhikriga ilaahay aad hayso oo ilaahay macaaga yahay waxaan idin tagayaan hamiga iyo qamiga iyo xusniga iyo kurbooyinka waxa idin ilaahay baa ka faa'iideeya ducooyinka akhriso taasi waa mid takale waxaad u carartaa sabirka iyo salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam إذا حزبه الأمر
هذا أمر كله أما أريني أي لسه قد بنات أما أريني كوات كاتو فزع إلى الصلاة حق صلاته على الشروق أرجع الشري صلاتكم حتى ورح العدي الوصول شيء أو تكمل حذي صلاة يصبر بس قدر صلاة دبادي إلى ذكر إلهي نويتاي إلهي نوي نقول واري سوت قبول يسال روح مسلمة مركز استرس حجابه ويمنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة شرطي هي جواب الله سبحانه وتعالى يدا كشري condition هي جوابك condition كسول هاو روحي عمل وناكسن سمية أصوى مؤمنة عمل وناكسن سمية إلهي وحو يري وحانو نوليسين إنا نولا وناكسن حياة طيبة أدوك حياة طيبة أي كله حياة طيبة معناها هذا محيطة حياة طيبة حياة سعيدة سعادة للصينية فرح بالصينية الولي وحكلوا لي حتى وحيالها حارانت أهل فوقينيا حياة طيبة كل ورانا يا روح لكن كي ذكر إلهي كيف وقاذي معيشة ضنكا بوليها بلي نور الأبد إذن علاجك إيو ماشا أنو كهلين عافماتكو وذكر إلهي سبحانه وتعالى ولا تنيا في ذكري إلهي سبحانه وتعالى موسى هارون مركو دري ذكر إلهي وكل دردار مي صحابة رضوان الله عليهم حالته مركي أتكاتو ذكر إلهي بأفك قبل جرين قيل هذا يبوق يسكو أرتي وحصل وفشل وي ذكر إلهي لا استاجني ما لها خطرتها مركي مرعيان وعلى ليه تري ذكر إلهي لا حول ولا قوة إلا بالله له كوكاسي وحكا سأوفر مجرين إذا ذكر إلهي أنه قصة نقن أو أنه فافنه أو أنه مجتمع أنه كفافنه قبلها ولا لها محاضرة دقي سنية رجع ولا لها هذا يعرف الرياء أنا كان إذا الله ضحية واحد وقتان مجتمع ظفر بدن الصومالي ليه هذا بينه هذا إنه محاضرات كان يدعونا إنه هذا كان دقي سنية كوا ظفر بدن بسوق التاجن كوا ظفر بدن بالغيابة إلى دباتوين كان أو عبادة الآن أي كتشران dadka noocaas oo kala ah dadkii wax sii gaarsiin lahaa waa inaga waa inaynu darsi qaadanaa deetana aynu sii gudbinaa waa inaad kelimad wanaagsan qaadaa deetana dadkaad usii geysaa miina arkayna xadiiskii hadda nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxu waxaa laga yaabaa inuu kelimad wanaagsan oo uusan islahayn micno badan bay leedahayba intuu ku hadlo uu ilaahay ridihiisa ku hilaayo ilaa yowmi yalqaahu ilaa uu maalinku ilahay kala kulmaayo marka waxaan rabnaa waxa weeye inaynu inta sharku uu faafi lahaa waa inuu khayrku faafaa sharkana la joojiyaa diintan ilaahayna kutubtay ku qoran tahay camal fal bay u baahan tahay ikhwaan haddaad un tiraahdo anigu sidaan doonaa isaga camal falahayaa laakiin kitaabadii iyo xadiisii wax fara badanna waan akhrinayaa looma baahno waa inay actionku bilowdaa wey aamusku waa inuu badnaadaa oo uu hadalku yaraadaa sideedaba hadalku waa inuu yaraadaa inuu khayr yahay mooyeen waxaa la yidhi waa inay yaraataa qiila waqaala waa inayna dhicin waxaa la yidhi maadaa dhowaan maxkamad lagu soo joojinaya sheekadaas waa inay carabkeennu aan ilaalinaa waa inay doodu yaraataa waa inaan diinta ilaahay ka run sheegnaa waa inuu ruuxu asagu wax isku falaa ood ogaataa ruux muslim ah haddaad wax ka sheegto inuu ilaahayna subxaanahu watacaala kugu maqan yahay siduu nabiguna sheegay oo uu kugu fadeexayn doono gurigaaga xataa haddaad ku dhex jirto waa waciid wey waa inaynu dib isugu soo noqonnaa oo aynu nidhaahnaa macnaha aayaadkan iyo axaadiistan miyaynu ku camalfal u baahnayn hebel iyo heblo waxba igama gelina anigaa bilaabay oo ku camalfalaya oo aynu halkaas camalfalkii aynu ka bilownaa mujtamaca markaasuu wanaagsanaanaya ikhwaani markaasuu isjeclaanaya markaasuusan isku xadgudbaynin ruuxa muslimka waa inuu waqaaf aadaa cinda aayaat illahi cinda axaadiid rasuulillahi waa inaad ku istaag badnaataa aayadda iyo xadiiska
laakiin ta dambeed ka daba keenaysa kada saayo wayaano uu fiican yahayo waa sidana laakiin tan dambe ayaa rabtaa inaad sheekada hore oo idin khayrka sheegtay aad ku tirtirtee laakiin ta dambe jooji haddaad rabto inaad ruux wax u sheegto waxaa jira way loo maro oo hadda muxaadaradan ahayne weeyada loo maro waa inaad u martaa xikmo waa inaad u martaa fircawn ninka xumaamiyaa jira ilaah baan ahay buu yidhi ana rabbukum alcalaa buu yidhi laakiin nabiyullaahi muuse iyo haaruun markii loo diray faquulaa lahu qawlan layinan baa lagu yidhi hadal layina oo jilicsan oo u dhaha lacalahu yatadakar oo u yaksha ruux muslima walaalkaa ah markaad aad istiraadi waxba kaama aqbalay waxba ma yeelaya arrintaa loo baahan idan ikhwaani fillah jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala haynaga dhigo kuwa axaadiistan aynu maqalnay ku camal fala oo aayaadkan qur-aanka ah ka run sheega oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta ay ka nabadgalaan oo ilaahay subxaanahu watacaala dadkiisa muslimiinta ah uu ka nabadgeliyo ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala in uu khaatumadeena khayrna uu khatimo inuu ilaahay subxaanahu watacaala uusan ina fidnaynin ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuusan ina fidnaynin cadaabu lqabriga ilaahay subxaanahu watacaala waa ka nabadgelayin inuu naga nabadgeliyaan ilahay ka baryaynaa qubuurteena rawda min riyaad aljanna inuu uga dhigo ikhwaani waad ogtihiin waxaa batay geeridii way badatay mowtulfaj'adii baa badatay waxaad ogtihiin weegii haddayna soo dhaaftay intaasoo soomaali ah oynu garanayno inaynu aasnay oynu soo aasnay innaga in laynoo soo jirana war uma aynu hayno ruux kasta ruuxa kale waa inuu saamaxa oo uu cafiyaa ruuxii ruuxa ka tirsanaya waa inuu toos ula hadlaa oo uu wixii uu ka tirsanaya u sheegtaa oo uu markaas cafis ay labadooda dhex maraan waa in uu dadka muslimiinta iyo maalin waxaa jirta aad u baahan tahay waxoogaagan hadda haysato intii yareeda masaajidka joogtay khayrkii aad haysatay intii sadaqadii aad dirdirtay qaraabadii aad xidhiidhisay khayrkaagaa maalin baad u baahan tahay dad kale ha siinin dad kale ha iska siinin intaad waxbaan xamanayaa tidhaahdid shaqada aad qabanaysay ee intaad soo shaqaysanaysay dad kale xoolahaaga ha u shubin caqli ma aha inaad intaad sanad idin shaqayso 10 kun intaad isku urursato ninaad coltihiin ama gabadhaad coltihiin aad aayar iyadoo kaasha u geyso aduguna halkaa ka baxdo haddii aad camalkaagii oo idilba aad ruux kale u sheegayso arrimahaas waxay ka mid yihiin waxaan dib idinku xusuusinayaa waxyaalaha aad dadku kaagaga nabadgelayaan bay ka yihiin adiguna aad ku nabadgelayso wajazaakum allahu khayr والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسانك حصانك إن صنته صانك، لسانك حصانك إن صنته صانك. هذا اللسان هو السبب صرت في نار اللهب. هذا اللسان هو السبب صرت في نار اللهب. هذا اللسان وحقه حبس يطول بلا سبب. أمسك عليك هذا يا أخيا، أمسك عليك هذا كي ننجو سويا. أمسك عليك هذا يا أخيا، أمسك عليك هذا كي ننجو سويا. لسانك حصانك إن صنته صانك، لسانك حصانك إن صنته صانك. هو لا يمل من العمل، لا يشتكي يوما تعب. هو لا يمل من العمل، لا يشتكي يوما تعب. للمؤمنين إن اتقوا حقا رسول ما كذب. أمسك عليك هذا يا أخيا، أمسك عليك هذا كي ننجو سويا. أمسك عليك هذا يا أخيا، أمسك عليك هذا كي ننجو سويا. لسانك حصانك إن صنته صانك، لسانك حصانك إن صنته صانك. لسانك حصانك إن صنته صانك.